salaadiinta iyo odayaasha beelaha dega koonfurta iyo bartamaha magaalada Hargeysa oo maalinnimadii shalay gaaray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa kulan ballaaran la qaatay dhigood salaadiinta iyo odayaasha beelaha dega gobolka Sool waxayna ka wada hadleen sidii codka loo siin lahaa loona taageeri lahaa murashaxa jagada madaxweynaha ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cabdilaahi Cirro ugu horeyntiina salaadiin ka socday beelaha dega koonfurta iyo bartamaha magaalada Hargeysa ayaa sheegay in haatan dalku u baahan yahay isbedel lana taageero murashaxa madaxweynaha ee xisbiga wadani annagu waxaan wadnaa markaanu shirnay aanu dhinac walba ka eegnay aanu dalka qiimaynay iyo xaaladdu halkay marayso waxaanu wadnaa musharaxa xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro waxa kale aanu rajo ka qabnaa inaad si weyn noola qaadan doontaan biidnillaahi tacaala waxaanu idin leenahay dhulbahantow maanta waxaanu idin wadnaa caafimaad waxaanu idin wadnaa inaanu wax badan qabanno kulmiye wuxuu ku ololayn jiray hees tidhaahdaa baashiiba haraaday ilaahay baa aqbalay haraadba waynu ka bixi weynay annagu waxaanu wadnaa maanta mid waqalku da'ayo waar waqalkii ma aragteen makhluuqa yaryar ee socday quraantadu ka mid tahay waxay qaadaysaa waqalkiibaa da'aya annaga iyo dee qolo kale isaaqaa idiin wada nimiyo annaga sida aad noogu muunayseen aad noogu soo shirteen ciddii kale uguma idaan shirine dee jacaylkii loodhan jiray ama aqoontii loodhan jiray waa is yaqaanaa labadaa reer waa idinka muuqatay iyadana waa idinku abaal haynaa horta wallaahi oo billaahi oo tallaahi saddex baad mareeyay wax daacada waxaan ahayn inaanaan idinkula hadlayn waxaanu idin idhaahnana inaanaan ka been sheegayn haddaanaan dhiman maalintii waxaan ku jiray ergadii qayaadiyo markay istireen bahararsame la heshiisiinayey maalintaa way cawdeen qayaad iyo bahararsame waxay yidhahdeen waa la caydhoobay colaadina waa dhacday dadkii dhintayna mag baa ka xukunteen lacagtaa xukunteen waxay noqotay $1,226,000 qoladii dowladda iyo qoladii habar jeclo ee ismadaxa idiina socotay labay ahaanoo way aamuseen maantana bahararsame iyo qayaadiba way fadhiyaane waxna lama bixinino waan ogahay iyo dhulbahantaba doorashadiina waxa ka hadhay 20 cisho haddii aa xisbiga taageertaan uu guulaysto wallaahi waan keenayaa lacagtii haddii ilaahay naftiinooda ay soo dooni maysaan axdi qarameedkii boorma lagu galay 1993 dowladda galbeed bay wareegtay intii reebay ahayd waa tii daaduurtay dhaxday sidii loo taagan tiido kula maanta anagu waxa wadnaa axdi qarameed halkan laga xudur xirayo iyo dowlad bari shirka Laascaanood wuxuu noqonayaa hormood wuxuu u noqonayaa in dhulbahanta aan baharta madaxweynaha ka noqon karto haddaad baasha ku celisaan boorama iyo jabuuti ku celisaan iga wallan way naga dheeraanaysaa halkana cid inagama xigto oodagti dhinacooda isimada iyo odayaasha iyo cuqaasha beelaha dega gobolka Sool ayaa ka dhawaajiyay inay la qaateen taageero ballaadhan oo muujinayaan murashaxa jagada xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sida waxa weeye deegaan xajis iyo isaaqintiisa kale waaba isku dhowdhowayeen haddaad idinku isdoorataan annana wayna dooranayn waa run haddaad idinku isdoorataan annana wayna dooranayn xisbiga cabdilaahi hogaaminayo ee aad tiraadeen nala doorta cabdiraxmaan xisbiga dee horey waanu soo aragnay ballaqaadna waanu siinay kana noqon mayno oo af iyo uur aan iswaafaqsanayn dee ilaahay la hortegi mayno maalinta qiyaamaha waa idin soo dhawaynaynaa sida aad wax noogu sheegteen baanu idinla qaadanay war hooy warka aadna tidhaahdeen isimow dadka ninkii waxgashada ku qadi maayo waa ku faa'iidaya isla idinkaada nasiib wanaagsan degmada Wadooda waxay diyaar u tahay dhammaan codkeeda inay siiso mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Cirro qoriga haddaynu ku harsan weynay fartaan ku harsan waddoorashada annagaa weynay taad weydaan annagaa weynay maxamed cabdilaahi cirrana wuxuu ahaa taliyihii saldhigga booliska Buuhoodle waa nin la yaqaan asxaabtiisii baa joogta waa idin dooranaynaa waxaanu ku qaadnay rag iyo dumarba inaanu garxaj siino oo aanan meel kale kala baydhin dhulbahante waxaan ku boorigelinayaa inay codka siiyaan raggaa inoo yimid maanta codka aadna weydiisateen iyo go'aanka aadna weydiisateenna
beelaweynta gobolku waxay isla qaateen inay idinka aqbalaan oo waataad maqlayseen hortiinay ka hadleen waxaan anigu shakhsi ahaan ka hadlaya dhaqanka iyo siyaasaddu waa kala laba annagu dhaqanka waa soo dhaweynaynaa bili haddii arab yimaado oo uu yimaadana waa soo dhaweynaynaa haddii sawiro siciid yimaadaana waa soo dhaweynaynaa haddii xagga ay koonfur laga yimaado dhaqan ka yimaadana waa soo dhaweynaynaa annagu cid aanu meel ugu xidhannahay dhaqan ahaan ma jirto سمير سعيد بلا بلشة تيفي لا سعنة